saameyn weyn ayuu ku leeyahay horumarinta tamarta cusboonaanta ee dalka Somaliland waana mashruuc ugu horeeyay noociisa aynu halkan ka furro wuxuu aan ognahay muxuu ahaayay tamar jaban waxa weeye oo la awoodi karaa inay tahay muftaxa horumarinta dalka leeyahay haddii aan tamar jaban haysan dalka horugu marin maayo waxaynu la soconaa qiimaha uu ugu joogo korontada uu la joogto way la soconaa Somaliland waxay ka kacdaa dollar iyo 25 senti way ka kacdaa waxa ay u maleeyaa oo loo maleeyaa inay tahay leyd la iibsado meesha adduunyada ugu qaalisan Somaliland leyd la iibsado korontada la iibsado waxa la eegaa oo loo maleeyaa inay tahay meesha adduunyada ugu qaalisan marka ninkii ahamiyad gaar ah ay wasaaradda tamartu iska saartay siday ugu horseedi lahayd dalka si koronto la kaari martay la iibsan karo oo affordable bal qabta oo safe ah oo aan dadka dhigin la isku halayn karo inay joogto oo reliable noqon kartaa waxaan jecelahay halkan hambalyo aad iyo aad u ballaaran uga soo jeediyo wasaaradda hawsha ku shuqul leh iyo inta allayntii wax ka qabatay oo dhan mashruuca kan dalkeenu waqtigiin waxaan jecelahay horta markooda inaan halka kan iyagana aan si mahadnaq gaar uga soo jeediyo USAID oo gacan weyn ka geysatay mashruuca kan iyo ciyaal ciddii hawl iyo fara ku ahayd ee hawsha wax ka qabatay intaba aan mahadnaq aad iyo aad u ballaaran u soo jeediyo mashruuca kani waxa weeye mid isticmaalka dabaysha waa inuu ku fushanayno daneen iyo hawsheenna inuu isticmaalana awood u isticmaala halkeenu koronto ka isticmaali lahayd waxa weeye hawadu ama dabayshu waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay dhulkeena ku manaystay weeye ee aad ugu badan tahay haddii aynu maanta sidaa aynu farsamo iyo cilmi iyo aqoon u helno aynu ku isticmaalno oo dadkeena iyo biyadeena iyo ummadeena iyo shacbigeena uga faa'iideyno waa wax ilaahay lagu mahadnaqaa marka waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ciidan la cidda ku shuqul leh wasaaradda hawsha wax ka wada hawsha fulinaysa iyo inaan la inta gacan ka geysatay